wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta ayaa shaacisay dad hor leh oo laga helay cudurka halista ah ee covid-19 kuwaasi oo baaritaano caafimaad lagu sameeyey kadibna laga helay xanuunka. warbixinta maalinlaha ah oo ay soo saarto wasaaradda caafimaadka ayay ku sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka laga helay 1,072 qof islamarkaana laga helay waa 128 ka mid ah dadkaasi. dadka laga helay cudurka ayaa ku kala sugan Somaliland 41 qof, Puntland 32 qof, Jubbaland 24 qof, Hirshabelle 18 qof iyo gobolka Banaadir 8 qof ah. waxaana bukaanada cusub 68 ka mid ah ay yihiin rag halka 60 kalena ay yihiin dumar. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka ay Somaliland ugu dhinteen 8 ruux iyo magaalada Muqdisho oo 3 qof ah, kuwaasi oo ahaa dad uu horey ugu dhacay xanuunka, waxaana ka bogsaday 36 qof. tirada guud ee cudurka covid-19 laga diiwaangeliyey gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 11,292 qof islamarkaana waxaa ka bogsatay 4,795 halka ay u dhinteen 521 sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya.